وفرين وعدي وانا حنبارسن وكصابسن قدور الشذا الصومالية فرينتي waxay ku socotaa inteeda badan ragga xildhibaanada ama wax dooranaya qaybna waxay ku socotaa ragga doonaya in la doorto dhammaan labadaba si guud waxaan rabaa inaan xasuusiyo ilaahay cabsidiisa iyo berri maalin aakhira inay jirto dadka xilka hadda haya ee xildhibaanada ah iyo kuwa xilka haya doonaya intaba نبينا عليه الصلاة والسلام وكي كسوغانتا إنه ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة وكد ذلك دونتان حل إن القبطان آخرنا واتكشى الله دونتان ويواجباتك إلى حيد قد الشديدة أيان سعون دونين قفل بآخر ذي سأبقى ياهي إنه كدك دقو درجوين كذا حلكي مسؤولية ديك على دوان مفيعنا dadka wax dooranaya waxaan rabaa inaan iraahdo idinkiyo dadkaad matalaysaan waa dad muslim ah qofka muslimkii diintiisa in la ilaaliyo oo islaamnimadiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan loo ilaaliyo u baahan yahay cid kastoo mas'uuliyad u haysana waajib baa ka saaran aakhirana waa la weydiin doonaa dadku waa dadkiinii waa ilmihiinii aabihiin iyo hooyadiin waalidkiin iyo walaalihiin iyo idinka laftiinna ummadda dhan ay idin sugaysa idin matalaysaan waxay idinka doonayaan waxa suuragalka ah waxa ugu fiican inaad u doortaan waa laga yaabaa qof waliba qofku raba ma keeni karo saad rabtayna uma wada heli kartid laakiin waxaa ku saaran waxa yaalla suuragalka ah waxa ugu fiican ay ummadan marka koobaad diinteeda u ilaalinaya marka labaad duunyadeeda oo dhiigoodii iyo dhaqankoodii iyo dhaqaalahoodii u ilaalinaya wadanka dume ee burbura ee dadku ku baaba'een dhismihiisu runtii waqti dheer buu qaadan oo dawlad iyo 2 iyo 3 toona ma dhammaystiri karaan waqtiyo kooban leh laakiin mid kasta oo xagga wanaagga tallaabo u qaadaya kan ugu wanaagsan ama kuula wanaagsan ayaa waajibkaa saaran yahay codkaaguna waa xisaab waxaad u dhaarateen inaad dadka iyo dalka iyo diintaba daacad u noqonaysaan inta dhaarood ee la maro ama qabiil loo maro ama nin sharaxan loo maro ama kooxaad ka tirsan tahay cid ku soo saartay loo maro waxba kama jiraan haddii ay tan ka hor imanayso idinkoon dhaaran bay waajib idinku ahayd dadkiina iyo dalka iyo diinta inaad daacad u noqotaan dhaar la'aan haddaad dhaar ku darteen ciddaad dooranaysaane way ku habboon tahay waa markhaati aad furaysaan ilaahina subxana watacaala wuxuu aad dembi weyn ugu tilmaamay in dhaartii iyo markhaatigii laga been sheego wuxuu yidhi in aladiina yashtaruuna bicahdiillaahi wa aymaanihim ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كوا إيبسانية نفع يرداف صنية أحدق إلهي لقالين هي دارتي أي صور دارتين نعف يرو دقالة هي لالوشة نعف يرو حل هي تشغى هي كرسي بعد هليساه نعف يرو قف بعد كارغو صنيساه نعف يرو قفات جعشهاد ميل u riixaysaa kuwa nacfi adduunyo oo yar dhaafsanaya axdigii iyo ballantii ilaahay ay la galeen iyo dhaartii ay dhaarteen aakhira nasiib kuma laha waxba calaf aakhira kuma laha ilaahay lama hadli doono dembi kama dhaafi doono cadaab adagna agtiisa way ku leeyihiin inta waxaa loo ballan qaadayaa soo galaysaan haddii eraygii codkiina aad ka been sheegtaan haddii dhaartii aad dhaarateen aad ka been sheegtaan dhaqaalaha lagu qaatana dhaaruushkuna waa xaaraan ciddii dooni ha ku siiso magacay doonin ha u yeesho haddii dhaaruushkii xaaraam yahay waa dembi waxaa labaad oo dembiya dhaar kale oo taa ka duwan inaad gasho
dhaar kastoo taa ka duwan oo la galana ma guntanto oo yamiinu macsiyatin way dhaar dembi iyo macsiya way waxaa laga doonayaa qofka maanta markhaati furaya axdi iyo ballanna soo dhaartay oo rabbi la soo galay inuu ka run sheego maanta waa adduun berina waa aakhari iyo qabri god cidhiidhi awey qof walow waxaad jeclaan lahayd markaad godkaa gasho in lagugu keena isagoo qoran samee wixii aad ka xumaan lahayd oodan jeclaateen in lagugu keenana haddaba ka joog waxaa kaloon rabaa xildhibaanada inaan iraahdo golahaad fadhidaan ee xeerarka iyo sharciyada samaynaya dadkaad u samaynaysaan waa dad muslima diin iyo dhaqan leh waa dadkiinni iyo ahalkiinni xeerarka aad dejinaysaan diinta ku saleeya inaanay diinta ilaahay ka hor imanin dhaqanka suuban ee wanaagsan aanay ka hor imanin waa waajib dheer oo idin saaran shakhsi xil qabtay waqti kooban buu tegayaa laakiin sharci iyo xeerkaa dadkan u dejisaan waqti dheer buu jirayaa ummad badanna waa lagu dhaqi doonaa adoo dhintayba ama dembi ama ajir kuu soconayaa qof walbana waxa uu beerto buu aakhara markuu aada midhihiisa guran doonaa waxaa laga yaabaa xeeraad dejisoo qaldan 100 sano soo socota intii lagu dhaqmo 100 sanood god ku jirtana dembi kugu socdo waxaa laga yaabaa 4 sano oo soo socota cidaad xil si beena markhaati beenaala u furtay wuxuu xoolo cuno wuxuu hanti dhaco wuxuu dhiig daadiya dhammaan dembiga qaybaad ku leedahay haddiise ilaahay dartii ay ka ahayd oo lilaahi qofkan kula fiicnaa laguma haysto wixii kaa qaldamay waxaad kas u samaysaa lagu haystaa walaalayaalow dadkan muslimka ilaahay uga baqa dadkaa burburay iyo dadkaa kala haaday dalkay soo higsanayeen baad maanta dawlad u dhisaysaan ha eegina qof baan ishaynaa ama isjecellahay nin jeclaysi iyo qof necbaysi ma aha xil iyo xoolaan helayaana ma aha runtii xildhibaano badan baa qoraallo ii soo diray i weydiiyey agoon iskuulle wax ma uga qaadan karnaa waxaanan u qoray maya waa xaaraan laaluush sinaba ha u qaadanina laaluushku waa dembi markhaati beenaalahaase ka sii dembi badan qiil uma aha waan dhaartay qiilna uma aha laaluush baan qaatay in haddana markhaati beenaalo aad furto axdigii iyo dhaartii allana aad jebisana qiil uma aha dembiga laaluushku aduu kugu egya adaa dembaabay dembiga markhaati beenaalaha ahna ummad ilaahay oo dhan baa dembaajisay dariiq xunnaad u horseeday maanta haddaad ilaahay uga baqdana ilaahay subxana wa taala agtiisa khayr baad ka rajayn haddaadan ilaahay uga baqinna ummaddaadina god baad ka tuuri adigana aakhara seeg baad isku ridi ilahay subxana wa taala waxaan uga baryayaa dadkaasi inuu khayrka iyo tawfiiqda waafajiyo wixii ka qaldamay hadda ka hor ka soo khaldamayna tawbadeeda iyo dembi dhaafkeeda waafajiyo waxaan rajaynayaa xilka sida loogu igmaday ee ilaahayna ay ugu dhaarteen axdiga iyo ballantana uga qaadeen inay u fuliyaan